بسم الله aad u mahadsan tahay maanta golaha wasiiradu waxay ansixiyeen laba sharci oo muhiim ah oo run ahaantii qaranka muhiim u ah sharciga koobaad wuxuu ahaa sharciga dhismaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya oo horay uga tirsanaan jirtay ciidanka booliska Soomaaliyeed deetana laga dhigay wax ka tirsan wasaaradda amniga horay waxay ugu shaqeyn jirtay xeer maanta waxaa golaha wasiiradu marsiiyeen sharcigeedii wuxuuna mari doonaa golayaasha kale ee dhiman haddii la yiraahdo waxaan rajaynaynaa haddii uu sharcigaasi ka gudbo golayaasha kale inuu wax badan oo horumarin ah ay sabab u noqon doonto waajibaadka hay'addu ay leedahay u fududeyn doonto haddii la yiraahdo sharciga labaadna wuxuu ahaa sharciga socdaalka dalka 63 ayuu ahaa xeerkiisana 66 la sameeyay waa garan kartaa marka sharci xilligaas la sameeyay oo xaaladaha aad aragtay qaabkii dawladnimadu isbedelay xaalada cusub ay dalka ku soo kordheen xuquuq badan oo xilligaas aan jirin ay maartay caalamka ku soo kordheen sharciyada qaxootiyada iyo heshiisyada qaxootiga iyo waxyaabaha xuquuqul insaanka iyo la xiriir oo dhan ay ka dambeeyeen maanta sharciga ay golaha wasiiradu sharciga socdaalka ee golaha wasiiradu ansixiyeen dhammaan waxaa ku jira waxalaali wixii kii hor ka maqnaa oo ugu badan xuquuqda insaanka iyo xuquuqda qaxootiga uu leeyahay iyo socodka iyo xaaladaha amniga dhammaan ayaa ku jira waxaan rajaynaynaa isagana inuu tagi doono golayaasha kale ee dawladda oo aan rajaynayna iyaguna inay gudbiyaan baahi weyn ayaana loo qabo run ahaantii sababtoo ah dhinaca xaaladaha amniga ee caalamka soo kordhay hadda isku socodka oo sidii hore ka ballaaran Soomaaliya oo maaragtay markii hore ahayd dawlad maaragtay military ka jirto aad u xadidna socodka oo hadda aad socodkeedu u badan yahay waxa soo kordhay socdaalo sharci darro ah oo maaragtay iyaguna caalamka soo kordhay gaar ahaan Geeska Afrika waxa soo dhan sharcigaas ayaa lagu nadaamin doonaa haddii la yiraahdo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta tilaawada golaha wasiiradu ay ku ansixiyeen labada sharci muhiimka ah